بسم الله الحمد لله رب العالمين. أما بعد، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبابي في الله وولاشي الفردوسة ولا لهيقا قاليقا خاصة قبلها الصوماليات waxaan rabaa maanta arrin muhiim ah inaan isku baraarujino. arrintaas oo ah ku hadalka taleefanka iyo hadalka aan macnaha lahayn ee maanta dhan iska socda, faa'iido la'aanta noogu jirto, ee nafteena aan ku mashquulinayno, guryaheena ku baylihinayno, caruurteena ku baylihinayno, laga yaabo guryaheenana inay ku burburaan. arrinkaas ayaan rabanaa maanta inaan isku baraarujino. walaashayda qaaliga ahay, muslimadda ahay, nabigeenu calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay khayr ku hadal ama iska aamus. khayr ku hadal ama iska aamus. haddii aad khayr ku hadlaysid waa loo baahan yahay, laakiin haddaan waxaan khayr ahayn aadan ku hadlaynin, inaad iska aamusto ayaa waajib kugu ah. waayo waa laqwi iyo waxaan macno lahayn. maanta dhan waxaad haysataa taleefan, waxaad la hadlaysaa saaxiibta, waxaad leedahay ii waran, heblaaye ka waran sidee ahayd, waxay ku leedahay, way ku faahfaahinaysaa. heblaayo saas iyo saas baa ku dhacday, heblaayo saan bay ku samaysay, heblaayo waa la furay, heblaayo waa la aroosay. yaa ku yiri ka sheekee, yaase ku yiri ka hadal. waxaa ku yiri xabiibka calayhi salaatu wasalaam khayr ku hadal ama iska aamus. soo ummadii nabi maxamed ka mid ma nihin, soo gabdho muslimaad ma nihin, soo haddana sunnihii nabiga calayhi salaatu wasalaam ma raacayno, oo soomaali ma nihin, oo madhabkeena shaaficiye ma ahan. maxaad u ilowday inuu ku yiraahdo xabiibkaagu iska aamus ama khayr ku hadal? maad iska aamustid intaad 12 maanta taleefan bilaa macnaa aad ku hadlaysid, oo laga yaabo waalidka inay ku soo wacayso hooyada 10 jeer oodan ka qabanin, odaygaaga sida oo kaleeto, aabaha sida oo kaleeto, walaalka sida oo kaleeto aadan la hadlin, aad raadinayso heblaayo, aad war maanta dhan aad isku wadaan oon macno lahayn, oo macno weyn kuu samaynayn, inuu hawshaada iyo gurigaaga iyo xaqi waalidka kugu lahaa iyo xaqi odaygaagu kugu lahaa iyo xaqi ilaahay subxaanahu wa ta'aala kugu lahaa ka mashquuliya ma ahaan. ka mashquuliyo oo ku jiheeyo jid iblis iyo shaydaan ay jihaysteen ay ku habaabinayaan dumarka islaamka ah. gabadh muslimada ayaa tahay, gabadh ashaadanaysa ayaa tahay, ummadii nabi maxamed ayaad ka mid tahay, inaad aqeedada ilaahay subxaanahu wa ta'aala ku jideeyo oo ah sunnaha xabiibka sallallahu alayhi wasallam ina aad martid ood aamustid, wixii xumaana ka aamustid, wixii khayr aad ku hadashidna way ku fiican tahay, annaga dhamaana way noo fiican tahay. laakiin ma ogtahay taleefanka 12 maanta ku hadlaysid ee naftaada saameyn inuu ku leeyahay? dhakhaatiirta caalamka inay ka soo saareen gabdhaha inta badan madax xanuunka ku dhaca ee saameeya maskaxdooda iyo dhimirka inuu ugu badan yahay taleefanka. 1 saac ka badan haddii aad ku hadashid inuu kugu imaan karo madax xanuun iyo maxay ahayd wareer badan ood mashquulaysid, way saameyn ku leedahay. caddeeyaan dhakhaatiirta caalamka naftaada inaad u taxadartid, aakhiradaada u taxadartid, adduunkaaga u taxadartid waa shay loo baahan yahay. awlaadaada ilaalisid, naftaada ilaalisid, odaygaaga ilaalisid, waalidkaa ilaalisid waa loo baahan yahay. yaree hadalka aan khayr ku jirin, raac jidka ilaahay ku jideeyay, ha ilaawin wax kasta oo ku soo aroora sunnaha xabiibka. aamus ama khayr ku hadal. waa walaasha Firdawsa. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.